aabahayga hadda Qadar Ibrahim magaceygana anaysta ee dadka ugu wacan Qadar Ibrahim maahan aabahayga saxda Ibrahim aabahayga saxda aniga wuu geeriyooday Maxamed Qadar Cabdullaahi ayaa la yiraahdaa soo marka kadib waxaan isku dayay inaan yacni aniga dhan si aan ugu baxo life-ka aan ku jiray dilo dhoo qof walba dhalinyaradu waa ogtahay inta badan way ka gambadaan runta ma sheegaan qaarkood way u googooyaan laakiin waxaa fiican qofka bini'aadanka si uu comfortable u noqdo inuu ka hadlo yacni wixii markaasaytii ku soo dhacay ama ha noqdo dhan family ah ama ha noqdo dhan shakhsiyan asaga ah yacni markaasaytii inuu ka hadlo anigoo ku bilaabayo yacni dhankayga markaan for reality aan u hadlo oo dhan family ay tahay kulleeytaba aniga hadda dadka intay wada yaqaaniin magacayga kaliya iyo muuqayga yaqaaniin balse ma yaqaaniin like nolosheeda iyo lifekayga saxda ah inta badanna kagama aanan hadlin yacni meelaha social media ama yacni kagama aanan hadlin tan marka waxay ku tusaysaa yacni qof walba inuu lifekiisa saxda ah ka hadlo comfortable-na u dareemo si uu u noqdo yacni qof marar badan hadalladiisa la qaadan karo oo xigmad leh run ahaantii aniga aysan soo garin hooyo lama aanan soo barbaarin laakiin waxaan la soo barbaaray ayeeyo ayeeyana markuu qofka ayeeyo korisay waa ogtahay waa qof badraan oo la ilaaliyo inta badan muxuu ayeetii la doorayo balse noloshu markay ay ku tahay aa arkaysa haddana yacni garab aadan haysanin hooyo aadan lahaynin yacni sida aad dareemayso waa arki kartaa ani laakiin boqolkiiba boqol waxaan haystay ayeeyo ama hooyo hadda aan adduunka ugu jeclahay ayadana noloshoo dhan waxay tahay macaanteeda iyo quruxdeeda i bartay balse sometimes markii ood yacni aad aragtid nin dhalinyaro ah oo saaxiibkaaga oo kale camal ee yacni hooyadiisa dhabta ah haysta waxaad arkaysaa yacni waxyaabo adiga ku taabanaya oo markaasaytii maxay ku dhici kartaa adigoo yar hooyadaada maadaama aanan arkin ayeeyana aan la soo kortay kadibna waxaad ku sii ilaawdaa haddana inta ay ayeeyo kuu qabatay inay booska hooyo waxba aysan yacni kaa dhinayn oo aad fuul tahay dareemaysid aniga run ahaantii waxaan ahaa nin aad u da'yar oo haddana maskaxdiisa la tashtay inta badan aabahayga hadda Qadar Ibrahim magaceygana anaysta ee dadka ugu wacan Qadar Ibrahim maahan aabahayga saxda Ibrahim aabahayga saxda aniga wuu geeriyooday Maxamed Qadar Cabdullaahi ayaa la yiraahdaa soo marka kadib waxaan isku dayay inaan yacni aniga dhan si aan ugu baxo life-ka aan ku jiray in yacni aabba la'aan aan ahay aabihii oo iga geeriyooday hooyana aanan haysanin yacni awoowe iyo ayeeye aan la noolahay oo yacni muxuu ayeetii markii somehow aad dareemo yacni inay saaxiibadeeda ama dhallinyaradoo kale waalidiintooda ay u nool yihiin oo saxda ay haystaan ama garab walaalnimo ay haystaan madiyaana ahay qofnii lama aanan dhalin aniga walaalkimiyaa balse waxaan ku soo barbaaray eedayaal aad u macaan adeeryaal aad u macaan hooyo aad u macaan ayeeye awoowe aad u macaan oo awoowe yacni naxariista ay siiyeen iyo jaceylka ay siiyeen maanta aan inta kusoo koobi karin balse tan waxaan hadda u sheegay waxay tahay documentary saxda ah inaan duubeyna hadda yacni oo dhalinyarada ah u gudbinayo somehow in yacni maskaxdaada aad tusisid inaad runta ka hadli kartid yacni waxyaabihii noloshan ku soo marane aad dadku u gudbin karto u sheegi kartid xaqiiqatan waxaan ku nooleen nolol iska normally ah lowna ahayn hayna ahayn waxaan degnayn guri iska reer iska danyaraa ahayn guri iska danyaraa degnayn balse wixii ka dambeeyey muddo badan kadib adeeryaal iyo awowyaal kadib ay baxeen dhoofeen waxaa dhacday in familkii dhaqaalahoodii noloshoodii quruxdoodii intaba ay sii korto kadibna anigoo dhalinyaro ah haddana ayeeye iyo awowe aan haysto marnaba hooyo yacni aan lay dareensiinin oo dhulka layga dhowraya adeeryaal aad u macaan sidaan hore idinku sheegay iyo eedayaal aad u macaan iyo aabbo oo awowe oo hadda Qadar Ibrahim magacii aabihii aan booska ka bixiyo aabbo maadaama ay adeeryaal iyo awowyaal aabba dhahayeen aniga afkayga sidaasi uu la qabsaday hooyana sidoo kale hadda hooyada aan haysto adduunka hooyo ka macaan inay jirto uma malayn doono hooyo Faa Cabdi Jimcaale halkaan ka salaamayaa ayeeyadeyna ii ah in ayadina ay tustay jaceyl hooyanimo aad u macaan marka si aan yacni maskaxdeedii ay ugu baxday inaan maanta yacni aan hooyo la'aanna ahayn aabba la'aanna aanan ahayn
aabahay wuxuu ahay curudka guriga yani markuu muddo kadib geeriyooday yani dhalinyaran ahaa aad u da'yar iskuul dhiganaya dugsin dhiganaya maskaxdeeda si loo maaweeliyo yani waxaas looga bixiyo darteed wax badan oo maanta aan inta ku soo koobi karin oo aan isdhihi kara haddii aan dib u noqdo dhalinyarada qaar xitaa waxbaan dheerahay nolosha aan haysto ayay igu soo barbaariyeen aadna u qurux badan aabe Ibraahim Cumar oo awowhayga ah hadda waxaan ka salaamayaa halkan hooyo Faa Cabdi Jimcaale labadooduba waxaan leeyahay waxaa tihiin dadka adduunka ugu macaan haddii loo fiiriyo dhankayga aniga nin walbo ayayadiis ama awowihiis ama hooyadiis ama aabihiis wuu jecel yahay balse aniga yani waxaan ka hadlay maanta aan u duubayo maskaxdeeda yani wixii uu ku taagnaay aan ka hadlay maanta shalay sidaan ahay iyo maanta sidaan ahay labay kala tahay maadaama nolol qurux badan aan ku soo koray somehow-na markii aan yani arko dhalinyaro hooyi aabe haysto ama ciidahoo kale markii la dabaaldegay ee la socdaan guilty waan dareemi jiray balse waxaan ugu bixi jiray dib u xasuusan jiray macaanidii badnaa ee laysoo siiyey maxaa kaa maqnaay aad tegi kartaa maanta nothing waxaan tegi kara ma jirin waxaan seriousku ugu hadlayna waxay tahay programkan dhana ah program maskaxda wixii ku jiro iyo sida aan ugu baxday kadib markii aan yani soo koray xoogaa soo barbaaray reerkiina dakhli fiican oo soo galay yani nolosha hore ay ku jireen ay kasii ballaadhay tay ku jiraan maanta qurux badan tahay oo anigana yani aan isku dayay in aan wax yani aan ku soo kordhin karo bulshada ama magacayga aan u sareysiin karo oo heerkan aan ku soo gaar maanta dadaalkeeda waxaan hadda dib ugu laabanayna waxay tahay mar walba waa inaad reebtaa yani xaqiiqadaada dhabta yani mararka aan dareemo xaaladaha city waaban ku sheegayba waxaan yani sameyn jiray inaan yani horta markaan arko yani anigu sida hore idinku sheegana madi aan ay yani arko walaal kale la socda ee haysta farxad siinaya aniguna garabkayga walaal ila dhashay iyo hooyayga aabbo uusan u joogin waalidiintana ay geeriyoodeen aan la noolahay waalidiin kasii macaan badan maanta adduunyada ii jooga allah ii dhaafo balse waxaan giltiga aan dareemi jiro maanta u soo gudbinayo waxay tahay yani xanuun inay boos iga banaan marka aan isku dayay inaan kaga baxano waxaan kaga bixi jiray si easy ah markaan ama ilmeeyo ama is uqdadeeyo ama yani maskaxdeeda ay gasho haddii maanta sidaas ay heli lahayd ama adduunkan ay ku joogi lahayd iyo maanta sida aa haysatid maxay ku kala duwan yihiin farqiga waxbana waayo waxay ku kala duwan yihiin ma jiraan waalidiin aad u macaan oo ilaahay siiyey oo booski ii joogay oo yani exactly sidii oo kale ii taaganaa ku dhaa iyo eedooyin iyo adeeryaal oo maskaxdeedaba ka bixinaya inaan yani guilty dareemo balse in yar markaan aniga maskaxdeeda fikiro waxaan gelin jiray haddii yani nin duurka iska socda aad ahaan lahayd ama waalid uusan haysanin markaas laga yaabay inaad tiraahdid allo maxay iga maqan yihiin aad ciishootid balse waxaadan ku ciishoonin maanta waxay tahay ama aadan dareemaynin in yani still jaceylkii beri aad jaceylkii shalay aad rabtay maanta in aad haysatid berina in aan anigu sii sameeyo family nololna sameeyo maasha allah ilaahayna family qurux badan wuu siiyey magacna maanta iyo iguma yaro sidaan isleeyahay yani bulshada dhexdooda waxyaabaha marka dhabtaa inay dhalinyarada ka hadlaan waxba ha iscelinin wax beenana weligaaga ha sheegin sababtoo ah noloshan aa arkaysid waa yani sida qof doqon ah noloshan aa arkaysid waa sidii qof doqon ah oo maantoo dhan qofka doqonka markaad yani mar walba inaad ka awood badan tahay uu dareemo halkii mar uu asaga kaa awood badnaado ama dhulkaas uu kula dhaco uu kaa awood badnaanaya nolosha sideeda badan waa doqon balse dulqaad ayay u baahan tahay ma garata noloshu waa doqon waxay u baahan tahay dulqaad waxaana aad ugu mahadcelinayaa dhammaan kaamiramanka sidoo kale adiga dhammaan bulshada ku xiran tiimkana channelka iyo meel walba ay joogaan shacabkana aad baan u salaamayaa waxaan tan ugu hadlayna ma ahan wax hadda i haysta ama aan ku jiro waan soo dhaafay